kulato wanaagsan daawadayaal waxaan kula wadaagayaa isbedel lagu sameeyay qaar ka mid ah saraakiisha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka qayb ugu muhiimsanaa ee Muqdisho ka howlgalaya ayaa isbedel lagu sameeyay waxaan kula wadaagayaa xogtaasi waxa isbedel lagu sameeyay saraakiisha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee ka howlgalaya qayb muhiim ah oo ka mid ah magaalada Muqdisho si gaar ah waxa loo bedelay qaar ka mid ah taliyaasha qaybaha iyo sidoo kale taliyaasha saldhigyada degmooyinka ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo isugu jira ciidamada caadiga ah ee nabad sugidda ee hubka wata iyo kuwa qarsoon intuba agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbulushe ayaa isbedelkan ku sameeyay taliska hay'adda ee gobolka Banaadir xubno muddo dheer shaqeynaya oo nabad sugidda Soomaaliya ka mid ah ayaa la bedelay waxaana lagu bedelay qaar kale oo cusub kuwa la bedelay waxa ku jira saraakiil aad loo yaqaan oo ka tirsanaa qaybaha gobolka Banaadir iyo sidoo kale kuwa muddo dheer ka shaqeynaya saldhigyada degmooyinka ee ciidanka dhar cad ah iyo sidoo kale kuwa kale ee ciidanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ah in muddo ayaa la sugay isbedelkan kaliya ma ahayn waxa la sugay isbedel ka dhaca saldhigyada degmooyinka iyo kuwa qaybaha ee xataa waxa la sugay in isbedel kale uu ku sameeyo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Sanbulushe waaxyaha kale ee hay'adda nabad sugidda iyo saraakiisha kale ee xafiisyada ku qoran inkastoo hadda waqtigan uu ku soo beegmay iyadoo aad loo hadalayo warar tilmaamaya inuu isbedel dhici doono guudaan hay'adda ku saabsan oo uu xafiiska banayn doono agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Sanbulushe dad badan waxay qabaan inuusan nisa taliyaheeda ugu sareeya Sanbulushe uusan isbedel ku sameeynin dadkii Muqdisho dhibaatada ku hayay ee sidoo kale xiriirka wali haya kuwaas oo sabab u ah in hay'adda iyo shacabka isnacaan sidoo kalena xataa sawir qaldan ka bixiyay agaasimaha naftirkiisa inay wali jagooyinkii hayaan laakiin rag kale intood oo Muqdisho amnigeeda wax badan ka qabtay shaqeeyay dibna aan lagu qabin oo isbedel ku sameeyay si weyn ayaa loo daneynayay isbedelkan laakiin qaybii ugu muhiimsanaa oo ah boogti reer Muqdisho ay tabanayeen oo gobolka Banaadir oo qayb ka ah isbedelku ma uusan dhicin waqtigan maalmihii la soo dhaafay waxa aad u xooganaa warka sheegaya in agaasimaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka uu xafiiska banayn doono sababtaas ayaana ugu wacan bay dadku qaar leeyihiin in isbedelkan uu dhaco maadaama uu doonayo inuu xafiiska baneeyo waxa uu qancinayaa saaxiibadiis sidoo kalena waxa uu meesha ka saarayaa rag ee in muddo ah ku kala aragti duwanaayeen shaqada ama ay si uun isu diidanayeen kuwaas oo la tuhmayo inay rag kale ku xiran yihiin oo saraakiishiisa ka mid ah qaar ka mid ah warbaahinta Soomaalida ayaa baahiyay in toddobaadkan shir uu dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo agaasimaha hadda talada haya ee nabad sugidda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbulushe soo kale oo goobjoog ah agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad isla markaana halkaas oo ka dhacay kulan iscafin ah sidoo kale lagu wargeliyay Sanbulushe inuu xilka banayn doono laakiin ilaa hadda ma jirto war rasmi ah oo nisa xaggeeda laga helay ama madaxtooyada xaggeeda ah oo warkan ku saabsan laakiin waxa qoraya xubno ka mid ah warbaahinta Sanbulushe muddo hal sano ah ayuu joogaa xafiiska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waa markiisii ugu cimriga dheeraad waqtigaana waxay nisa ku jirtaa xaalad degan oo ma jirto duruufo keeni kara oo isbedel amni sabab u noqon kara ama hay'addaas in la bedelo keeni karta marka laga reebo duruufo siyaasadeed oo u muuqda in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ku khasbayaan in hay'addaas oo isbedel ku sameeyo inkastoo uu yahay nin mayal adag haddana waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay shakhsiyaadka ugu shaqada wanaagsan ee hay'adaha ammaanka ee dawladda haddana waxa uu mutaysan doonaa xilka qaadis maalmaha soo aadan laakiin waqtigan waxay noqon doontaa markii ugu cimriga dheeraa oo hal sano iyo bilooyin oo xafiiska u joogo dadka taageersan Sanbulushe waxay qabaan inuu xafiiska banayn doono iyadoo aysan jirin eedo la xiriira inuu wax ka qaban waayo amniga magaaladan iyo guud ahaan dalka sidoo kalena wuxuu xafiiska banayn doonaa iyadoo loo arko inuu yahay nin si weyn u hagay hay'adda muddadii uu xafiiska joogay laakiin ay jiraan dhibaatooyin kale oo gudaha nisa laga tabanayo ah in xukunkii oo dadka u dhiibay bulshada lagu dhibaateeyay lagu abiyuusay qaar ka mid ah shacabka looguna awood sheegtay raggaasina wali waxay hayaan xilkii hay'adda nabad sugidda wixii warar ku soo kordha waxaan idinku soo gudbin doonaa wararkeena barnaamijyada dambe haddii Allah uu dilo idmaadina aragtidaada qaybta sifaalada noore muuqaalkan aan si share garay aad u mahadsantahay